xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada Puntland waa mid aad u ballaaran waqtigani si simanna u wada saameysay deegaanada iyo dhulka miyiga ee ku nool yihiin reer guuraaga xoolo dhaqatada ah iyo tuulooyinkii kala duwanaa ee biyacbaalka u ahaa. Halkani waa deegaanka Xasbahallo oo ka tirsan degmada Eyle gobolka Nugaal, kana mid ah meelaha ay ka soo yeeraysay maalmihii ugu dambeeyay qayla dhaanta abaareed, gaar ahaan biyaha oo tiir dhexaad nololeed u ah noolaha oo idil. Waxaana halkaasi biyo dhaan ka bilaabay hay'adda Haro oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee gudaha dalka. Soo jeedaan waxaan bilownay biyo dhaankii, hadda waxaan u joognaa dadkii reer miyiga ahaa oo biyaha loo dhaaminayay, xoolihii biyo la siinayo. Booyadan waxaan loogu talagalnay 6 reerood inay loogu shubo xoolahana loo waraabiyo. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu wixii la baxday oo umma oo lacagta bixisay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka aqbalo sadaqa maqbuula Ilaahay uga dhigo. Culayska haysta oo ay dareemayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dulqaado. dadka reer miyiga ana abaarta haysta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dulqaado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala madar caama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nasiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa intii la baxday oo sadaqaystana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sadaqa maqbuula Allah ka dhigo. marka walaalayaal insha Allah ta'aala inta ka dhimanna waa in la socon doontaan haddii Ilaahay idmo. Booyadii labaad ayaan u nimi oo xaafadaha qaybo ka mid ah siinaysa biyo. marka insha Allah ta'aala waxaan rajaynayaa idii la baxday oo walaalaha umma iyo Haro waxaana meel walba yaala waa indhaha ugu qabanayaan baqtiga qaybaha kala duwan ee xoolaha oo daadsan hareeraha xeryahoodii oo ay ugu agdhinteen gaajo iyo haraad wada jira. dadkuna waxay dalbanayaan baahidooda koowaad oo waqtigani ah biyo. yaa noo keenteen aanu ku barwaaqownay baahidiina hadda sidii baan u qabnaa. idinkana dambigiina iyo dambigii waadkaan Allah dhaaf. barwaaqana haddeer waa qabnaa baahidaas waqtiga jilaalka uu haysta. isagana Ilaahay baa naga saari kara. Ilaahay naga saaro degdeg Ilaahay naga saaro. waa baahanahay waynii baahanaa idinkana hadda muslimka iyo dawladda iyo idinka iyo wixii muslina waxaan uga baahanaa. xoolaan haysanay xoolihii abaar baa u timaaday ayagiina waa duuqeen annagiina dadkii iyo duunyada waa isku agdhacday. baahi iyo haraad baan qabsaday. wixii islaam ah oo noo gargaari karo ilaahigay xad dartii wuxuu bixinaya waanu rabnaa. Haro iyo muslimka oo dhan waxaan ka doonaynaa inay noo gargaaraaniin oo waxna siiyaaniin. biyaha jilaalkii hore saanu u biyo dhaansanaynay baa jilaalka daba noogu kacay. gaarigaa hadda biyaha noo sidaa oo Hara lacagta ay bixisay waxa weeye 1500 buu ku leeyahay. meelaan uga doonana ma naqaano yaqaana sidaa uu faariq u yahay baa naga sar. baahidu inta la doonayo ay jidaa hadda khayr Allah asiiyo iyo ashharo iyana waanu helay. wixii kale oo haatan nala awoodi karana waa u baahanaa. baahida sidii bay waxa weeye u taagan tahay waan u baahanaa. khayr baan u rajaynaa. saamaynta abaareed waa mid sii fidaysa gurmadka bulsho iyo dawladeed ee waqtiganina waa mid gaabis ku socda. xaaladda jirtana halis ka sii dhigi karaa. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.